marka waxbarashada waa muhiim weeyaan oo aad maaragtay dadkaagii aad wax ugu qabanaysid nafsadaada aad wax ku qabsanaysid waqtiga inuuna kaalumin kul yani inaan lose gain oo hadhow aad maaragtay ka shalaayeen sometimes waqtiga yeysan isaga lumin ما ويلس السلام عليكم ورحمة الله كنتوا نكسر صاحب بيال سودا وهذا مركلة حيل جوجا صاحبكي حاج عبد القادر فلفل مركب مقلان دتكو حاكو سودا عيا كابنك حاكو سودا عيا زب عبد القادر سودا هو عبد القادر صاحب بنا هيرونتي مرر بنا هالكم كلنا هالكم باكو شاهيني سجاها دكتشبيا هالكم كوضع عبنا سوري عبد القادر وقت بريها نسمان عرق وادوهي بريها دم اونك سمري كومنا اركي halka wasweyne ya soo dhaw caawa maanta nisayna bal horta waxaad iga warantaa niyo markaan sheekaysanayna inta badan xataa gacmaha ka hadasha moogto oo xoogaa sidii inaad kabanka hayso kale bal taariikhda noloshaada dib wax yar celi dhalinyaronimadaadii goorma kuugu horeyso horta kabanka gacantaada aad ku aragtay adoo ku haya horta hibada fanka waa xawaaye waa wax ilaahay kugu beeray fanku ma ahan isku riix jirkaaga dhiigaaga ku jira aqligaaga ku jira marka sideedaba hibada fanka waa wax badan wuxuu qofka la nool yahay macnaha wax kula nool waa wax aqli kaaga jira maskaxda kaaga jiro cidin kuuma riixi karta inaad baratid laakiin nasadii ayaa kugu riixaysa inaad baratid laakiin fanka marka la maqlo dadka waxaa ku soo dhacay inta badan muusiga iyo heesaha oo kaliya laakiin fanka horta intuu u qaybsamaa adee ahaantaada intaad garanayso fanka wax badan buu u qaybsamaa waxaa ka mid a music waxaa ka mid a eryatirin waxaa ka mid a ku luuqayn waxaa ka mid a musician waa badan yahay gacanta qofka tumaya gurbaanka qofka biyaanaha tumaya qofka gitaarka tumaya kabanka tumaya qofka saxophoneka tumaya saxophone markaan ku leeyahay waa wax badan saxophone kelirin marka waxaa la yiraahdaa turumbo Soomaalida ay tiraahdaa waa wixii la afuufay turumbo yiraahdaan marka turumada nafkeeda kala badan kelirin float marka sideedaba fanka waagii hore wuxuu ahaa 12 qofood baa tumaysay oo ah instrumenti wax la yiraahdo instrumenti dhinac ka dhinac drumka dilira gurbaankii macal wax dhammays ku jiraan oo ah bateriga bongaha bateri fanki hore la yaqaan la yaqaan gitaar kaleeto maaragtay oo bass ah saxophonada bateriga durbaanka organka saxophone kelirin corneto float ay waxaa waa ayagana waxaa qayb kale cajiib adiga marka ma baratay oo iskuul baad harmoni ku jiray oo ah asagniskiisa qaadanayay baartisolkiisa mar gitaarka galay marka funkii intaasoo dhan lahaa waxaa hogaaminaya hal shakhsi oo ah heesta waxaa alifay abwaan waxaa la xameeyey mulaxan waxaa muusiga sameeyey hal qofood waa imisa waa 3 qofood muusiga ma wada saarna hal qofood baa alifaad maqan keenay isla markaana intaas 12 kaas qofood siinaya qof waliba wuxuu leeyahay waa aragtay Soomaa heeskan waxaa sameeyey Cabdullaahi ama hebel waxaa la xameeyey shakhsi kale hebel waxaa muusiga saaray alifay waaya intaasba waxay ka kooban yihiin 3 qofood Soomaa midka alifay ereyada midka la xameeyey second midka muusiga saaray organic
يعني موسيقى instrumentiga oo dhan ninka qabasiinaya waliba baarsoolkiisa siinaya waayo waxay ka kooban tahay waa heeska nafkiisa waa intaas ya waxyar ma waxay ka kooban tahay gurigan oo la dhisayo waa engineer wuxuu ka kooban yahay udubadii wuxuu ka kooban yahay dhismihii hoose wuxuu ka kooban yahay sadaqadii wuxuu ka kooban yahay marka engineering waa heeskii waa waxaas engineering marka team dhan baa wixii wada dhisaya maya intaasaa dhisaysa intaas teamkaanay qabsiinaysaa oo muusigada 12 qofood 12 qofka marka iyo qofka ku luuqeynaya baa waxay ka soo qofka ku luuqeynaya ayaa la siinayaa marka faasi waa in la ximiisaha u siiya oo soo xafidaa kadib markuu soo xafido waa si fanka aan markii hore aan ku barbaarnay aan arki jirnay fanki la yaqaani ah qofkaas markuu soo xafido kadib qofka oo imaanaya iska waan haya marka saas fanku ahaa jiray fanka dhinacan heesaha ah adiga marka Cabdulqaadir ahaan goorma kuugu horeysay oo aad ku soo biirtay fankan heesaha lama dhihi karo inaad ma xasuusid habiba fanka halkaas ka keenay marka waa ku dhaxan walaaba Cabdulqaadir waxaan rabaa inaad bal aad dhalinyaronimadaadii laba qodob ama saddex oo aad yani il duuftay oo aad dhihi lahayd haddii aad maanta dhalinyaro ahaan lahayd weli dhalinyaro aad tahay maasha allah laakiin 20 jirkaaga 20 jirkaagii laba saddex qodob aad il duuftay oo aad maanta dhalinyaro intuu geed ka boodo ayuu qofka boodaa tala ka boodaa ma fadalay 20 jirka maanta jooga 20 jir maanta jooga ma jirta talaad siinayso waxaan ku dhiirigelinayaa kuwa teemkooda inay dhumin inkastoo aniga teemkayga aan lumin oo aan wax soo bartay marka waxbarashada waa muhiim weeyaan oo aad maaragtay dadkaagii aad wax ugu qabanaysid nafsadaada aad wax ku qabsanaysid waqtiga inuuna kaalumin kul yani inaan lose gain oo hadhow aad maaragtay ka shalaayeen sometimes marka wax badan bay ku kordhinaysaa waxbarashada adiga aad baratid yalaantaada 20 jirkaaga hadhow bay wax ku qabanaysaa dadkaaga iyo diintaada fariintaada marka maanta waxa weeye dhalinyaradu wax bartaan waxaan leeyahay dhalinyaradu wax bartaan waqtiga yeysan isaga lumin ma welis wax la yiraahdo don't lose your time waqtigaaga ha luminina dhalinyaroy waqtiga ha luminina aad baad u mahadsan tahay Cabdulqaadir filfil runtii aad ku taqaanaan inuu kabanka aad u garaaco laakiin wax badan baa ku duugan insha Allah mar baan ka soo saari doonaa maanta intaas baan ku koobsanaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته